kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warka warbaahinta TV qodobada ku daawan doontaan waxa kamid ah waxa looga hadlayaa kulanka baarlamaanka maanta ee ka furmaya magaalada Muqdisho Jubbaland oo ka hadashay dilkii nabadoon Saciid Muuse Cabdi oo xalay lagu dilay magaalada Kismaayo madaxweyne Farmaajo uu ambabaxay wadanka Ruushka taliska booliska Dhuusamareeb oo ka hadlay warar lagu faafiyay baraha bulshada oo ku saabsan in ay isbaarooyin yeelaan magaalada Dhuusamareeb intaasina waxay ahaayeen qodobada warka warbaahinta TV haatan u diyaar garoobay isagiyo faahfaahsan kadib markii xalay magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose lagu dilay nabadoon Saciid Ciise Cabdi oo kamid ahaa ganacsatada deegaanka Jubbaland ayaa waxa arintaasi ka hadashay dawlad goboleedka Jubbaland afhayeenka wasaaradda amniga Jubbaland Cabdinuur Ibraahim Xuseen ayaa tacsiye u diray guud ahaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan dadka reer Jubbaland isagoona marxuumka Allah uga bariyay in uu jannada ka waraabiyo sidoo kale afhayeenka ayaa waxa uu sheegay in laamaha amniga Jubbaland ay wadaan baaritaano kala duwan oo lagu raadinayo kooxihii ka dambeeyay dilka nabadoon Saciid Ciise Cabdi arag ku hubeysna bastoolada ayaa xalay xaafada Calanley ee magaalada Kismaayo ku dilay nabadoon Saciid xilli oo uu ka soo baxayay salaada cishaha isla markaana uu ku sii jeeday hoy uu halkaasi ka deganaa say sharag hubeysanaya rasaas alla dhaceen magaalada Kismaayo ayaa waxa xilliyada qaar ka dhaca dilal qorsheysan oo loo geysto nabadoonada ku nool iyadoo cusid ay mudan tahay in dhowr bilood ka hor nabadoon caan ka ahaa deegaanadaasi lagu dilay magaalada Kismaayo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo iyo wafdi uu hogaaminaya ayaa saakay u ambabaxay wadanka Ruushka madaxweyne Farmaajo ayaa kamid ah hogaamiyayaal Afrikaan ah oo lagu casuumay shirweyne ka furmi doona magaalada loo dalxiis tago ee Sochi ee dhulka fog ee dalka Russia hogaamiyayaasha shirkaasi tagaya ayaa waxaa kamid ahaa madaxweynayaasha Djibouti, Kenya, Masar iyo ra'iisul wasaaraha Ethiopia waxaana qabanqaabayaasha shirka ay sheegeen in uu socon doono muddo 2 cisho ah shirkan oo u dhaxeeya qaar kamid ah hogaamiyayaasha dalalka Afrikaanka iyo Ruushka ayaa waxa 23 bishan Oktoobar si wadajir ah u furi doona madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin iyo dhigiisa Masar Abdel Fattah al-Sisi waxaana shirkan diiradda lagu saari doonaa sidii dawladda Ruushka ay xiriir ula yeelan lahayd wadamada Afrikaanka iyadoo dalalka ugu waaweyn ee caalamka ay haatan loolan adag ugu jiraan qaaradda Afrika madaxweyne Farmaajo ayaa inta uu ku sugan yahay dalka Ruushka waxa uu sidoo kale kulamo duceedyo la qaadan doona qaar kamid ah hogaamiyayaasha Afrikaanka ee ka soo qayb galaya shirkaasi si kastaba safarka la filaya in dhawaan uu madaxweyne Farmaajo uu ku tago dalka Ruushka ayaa waxa uu noqon doona safarkii ugu dheeraa uu ku tago mid kamid ah dalalka ugu baaxadda weyn qaaradda Yurub taliska booliska magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud ayaa beeniyay warar taliska booliska Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud ayaa beeniyay warar lagu faafiyay baraha bulshada oo sheegayay in isbaarooyin la soo dhigay deegaanada duleedka magaaladaasi qoraal ka soo baxay taliska booliska magaalada Dhuusamareeb ayaa lagu sheegay in ciidamada booliska ay sameeyeen howlgallo kala duwan isla markaana ay sugeen amniga jidka isku xira magaalada Dhuusamareeb iyo deegaanka Godinle oo sidoo kalena aysan jirin wax isbaara oo yaala halkaasi taliyaha ciidamada booliska magaalada Dhuusamareeb ahna taliyaha xasilinta caasimada Gaashaanle Cabdullaahi Xasan Macalin ayaa sheegay in ay jiraan dad faafinaya warar been abuur ah oo ka dhan ah dhinaca amniga iyo waliba howlgallada ciidamada ka wadan deegaanadaasi waanaya ciidamada booliska ee ka howlgala magaalada Dhuusamareeb waxay howlgallo ka dhan ah isbaarooyinka ka bilaabeen wadada xiriirisa magaalada Dhuusamareeb iyo deegaanka Godinle ee gobolka Galgaduud xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa maanta oo Isniin ah waxay kulankoodii labaad ee kala fadhigii 6aad ee golaha ay ku yeelan doonaan xaruntooda cusub ee Villa Hargeysa ee ku dhextaala madaxtooyada magaalada Muqdisho ajendaha kulanka xildhibaanada ayaa waxa uu yahay 3 qodob oo kala ah u codeynta xubin magacaaban ee gudiga madaxa banaan ee doorashooyinka qaranka laba aqrinta labaad ee hindisa sharciyeedka dakhliga arinta saddexaad ee laga hadli doono ayaa ah aqrinta koobaad ee dib u noqoshada miisaaniyada 2019 intaas aan ku soo gabagabeynaya warka warbaahinta TV anigoo Faysal Soomaalina waa idin la socodsiinayay hadii aad ku cusub tahay channelkan fadlan subscribe saar
furana gambaleelka si aad u noqoto daawadaha ugu horeeya wararka aan halkan ku baahino si uu helo mahadsanid.